soo dhaweyntan oo ahayd mid looga hortagayay garoonka caalamiga ee magaalada London ee Heathrow Airport, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur iyo wafdigiisa ayaa ujeedkeedu ahaa kadib markii wasiirka oo booqasho rasmi ah ku yimid wadankan Ingiriiska. mas-uuliyiintii ka qayb galay wafdiga soo dhaweyntiisa ayaa waxaa ka mid ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya wadankan Ingiriiska iyo waliba qaar ka mid ah mas-uuliyiinta safaaradda ijaaliyada Soomaaliyeed oo ayagu isku xilqaamay sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen wasiirka. soo dhaweynta wasiirka kadib ayaa halkaasi waxaa hadallo kooban ka jeediyay safiirka Soomaaliya ee wadankan Ingiriiska mudane Cabdiqaadir Xaashi iyo waliba sidoo kale qaar ka mid ah jaaliyadii halkaasi ayagu ku soo dhaweeyay wasiirka. waxaan caawa halkan isugu nimid inaan soo dhaweyno wafdiga uu hogaaminayo wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda wasiir Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo ka mid yahay maarayaha guud ee dekada Muqdisho ambassador Maxamed Cali Nuur iyo howlwadana saro ka tirsan wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda oo yimid inay ka qayb galaan shirka 34 hay'adda IMO ama leeyahay hay'adda maaritimka caalamka oo ka bilaabanaya magaalada London 24 bishan oo isniinta soconayna ilaa 28 wasiirku wuxuu halkan u yimid inuu dhiibo kana qayb galashay la kulmo secretary generalka hay'adda oo bixiyana codadka dawladda Soomaaliya ay ka doonayaan dawlado badan oo adduunka oo aan la gaaray heshiisyo ku saabsan isweydaarsi iskaashi. wasiirku waxaan filayaa wuxuu la kulmi doonaa iyo maarayuhu waxay la kulmi doonaan jaaliyadda qaabo kala duwan. marka hore anoo wakiilka ah wafdiga wasiirka inaan idinkaga mahadcelin jaaliyadda oo caawinoo timid si fiican soo dhaweyseen waan ku yaqaanaa soo dhaweynta iyo waatinimada iyo Soomaalinimada. idin leenahay soo dhawaada wasiir adigu waa marka kuugu horeysaan u maleynaa magaaladan aad timid hadda ilaa banaanka waa lagu taagan yahay aragtidaada codkaaga waxqabadkaaga dhiirigelintaadan u baahannahay marka waxaan ku leenahay soo dhawow hadduu safiirkii iyo qunsulkii iyo kulli ay wada joogaan jaaliyadii wax ka maqan ma lahan. dhammaanteen waxaa sharaf noo ah sida uu ambassador Cabdiqaadir ba sheegay inaan soo dhaweyno waftigan oo howl xoog leh oo qaranka Soomaaliyeed muhiim u ah u yimid wadankan Britain magaalada London. waxaan rajaynaynaa in dalkeenana sida hadda sharafta ay ka muuqato halkan uu hore u socdo insha Allah. marka waxaan idin leenahay welcome to London. aadan u faraxsanahay inay soo dhaweyno maanta. intuu ku sugan yahay magaalada London ayaa wasiirka waxaa la filayaa inuu la kulmo qaar ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan wadankan Ingiriiska iyo waliba sidoo kale jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool wadankan Ingiriiska.